kusoo dhawaada daawadayaal wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka qodobada aad daawan doontaan waxa kamid ah kooxda al-shabaab oo lagu jabiyay dagaal qaraar oo ka dhacay degmada Waxbo oo ka tirsan gobolka Galgaduud ee maamulka Galmudug iyo ciidanka ka tirsan beesha Murursade oo sheegay inay sii wadi doonaan dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab ee ka soconayo halkaasi madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo shirka isbedelka cimilada ee ka soconayo wadanka Masar kaga hadlay dhibaatada abaareed ee ka jirto Soomaaliya iyo dagaalka ka dhanka kooxaha argagixisada iyo sidoo kale daawadayaal waxaan idin soo gudbin doonaa Ilhaan Cumar oo markii saddexaad dib loo soo doortay kadib doorasho shalayto ka dhacday Mareykanka qodobada iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelkan subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu halkan soo gelino aynu ku bilownay daawadayaal ciidamada xoogga dalka gaar ahaan kuwa ka tirsan beesha Murursade iyo dadka deegaanka ayaa kooxda al-shabaab ku xoreeyay deegaanka Waxbo ee hoos tagto degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud ciidankan oo ka duulay aaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ayaa waxay gudaha u galeen deegaanka Waxbo oo ka tirsan Galgaduud ciidamadan waxa hogaaminayay xildhibaano iyo saraakiil ka soo jeedo beesha Murursade waxaana deegaanadii lagu xoreeyay kooxdaasi ka howlgal miina baaris ah gudoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka Banaadir Ibraahim Dheere oo la hadlay warbaahinta dawladda ayaa sheegay in ilaa iyo 16 dagaalame oo ka tirsanaa kooxda al-shabaab lagu dilay howlgalkii lagu xoreeyay deegaankaasi sidoo kale Ibraahim Dheere waxa uu sheegay in dagaalkii al-shabaab looga gubay 2 gawaari oo kuwa dagaalka ah sidoo kalena kooxdaasi laga furtay hubkii ay wateen iyadoo uu sheegay in dhankooda dagaalkaasi ay uga dhaawacmeen 2 askari oo kaliya gudoomiyaha ayaa sheegay in dhulka ay ka xoreeyeen al-shabaab uu dhan yahay 16 kilomitir waxaana howlgalkaasi ka qayb qaadanayaan ciidanka danab oo miina baaris ka wado deegaanka Waxbo iyo deegaanada kale ee lagu xoreeyay kooxda al-shabaab ciidankan oo Muqdisho diyaarado looga qaaday maalmo ka hor ayaa laga dejiyay Beledweyne waxaana ay ku yihiin ilaa iyo Ceelbuur halkaasi oo al-shabaab ay ka xoreynayaan dhowr iyo 10 sano kadib madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbad ka jeediyay shirka caalamiga ee isbedelka cimilada adduunka ee COP27 oo ka socdo dalka Masar ayaa khudbadiisa waxa uu diiradda ku saaray isbedelka cimilada sida uu u saameeyay adduunka iyo xaaladaha bini'aadantinimo ee ka dhashay wadanka Soomaaliya oo ay wajahayaan shacabka Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay in dalalka ka qaybgalayo shirkaasi ay la yimaadaan qorshayaal ku dhisan iskaashi horseed u noqdo wax ka qabashada saameynta isbedelka cimilada uu ku yeeshay adduunka waxaana uu adkeeyay gurmadka ay u baahan yihiin dadka Soomaaliyeed abaaruhu ay saameeyeen Xasan Sheekh Maxamuud oo xusay in dalkeena uu u nugul yahay isbedelka cimilada ayaa tilmaamay in ay muhiim tahay in wax laga qabto saameynta xoogan ee la xiriirto arrintaasi dawladda Soomaaliya ay abuurtay wasaaradda deegaanka iyo waliba isbedelka cimilada sidoo kalena la daahfuray hindisa lagu dhireynayo Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu dambeyntii sheegay in dawladda Soomaaliya ay ka go'an tahay dhismaha mustaqbal dhaqaale oo xasiloon iyadoo laga faa'iideysanayo dhaqaalaha badda iyo fursadda beeraha waxaana uu xoojiyay ahmiyadda ay leedahay in dalalka adduunka ay maanta muujiyaan isku tiirsanaan iyadoo oo la eegin dal hormaray iyo mid soo korayo si loo maareeyo duruufaha bini'aadantinimo ee dadka dunida ay wajahayaan wali wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka ayaa daawanaysaan daawadayaal iminkana taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yuusuf Raage ayaa xirada ciidanka commandoska danab ee Balidoogle waxa uu tababar ugu furay askar cusub oo ku biirayso ciidanka xoogga dalka General Odawa ayaa askartaan tababarka uu u furay waxa uu kula dardaarmay inay daacad u noqdaan shaqada qaran ee loo carbinayo tababarkaasi loo furay ciidankan cusub ayaana ku soo beegmaya xilli qaar ka mid ah
gobollada dalka ay ka socdaan dagaal ciidanka xoogga dalka iyo dadka deegaanada ay kula jiraan kooxda al-shabaab. taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaana sheegay in kooxda al-shabaab laga guulaysan doono dagaalka lagula jiro, sidoo kalena la xaqiijin doono in laga ciribtiro guud ahaan waddanka. waxa uu ku booriyey ciidanka xoogga dalka inay si ambaqaadaan dadaalkooda iyadoo uu boogaadiyey shaqada ay hayaan ciidanka xoogga oo taageero ka helayo shacabka si looga adkaado kooxda al-shabaab. wuxuu ku kordhi doontaa tayada iyo tirada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan ciidanka danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed. waxaan rabaa runtii dhammaantiin inta halkaan fadhisay inaan idinkugu hambaliyeeyo inay idin suurta gashay dhammaan gobollada dalka in la aado ayadoo ujeeddadu tahay in dad muwaadiniina dhalinyaro ah rag iyo dumar isugu jira mutadawiciina u adeega dalkooda iyo dadkooda una bixiya dhididkooda iyo dhiigooda iyadoo la xulaayo in aad noqotaan maanta intiinaan inta fadhisa xubnihii kusoo guulaystay oo ay u suurta gashay albaabkii koobaad ee ay ka geli lahaayeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan ciidanka danab inaad adinka noqotaan. aad idinku hambalyeeyna qofka bini'aadmiga waxa ugu qiimaha badan ee uu bixiyo waa naftiisa iyo dhiiggiisa. waa ku mahadsantihiin marka si aad u difaacdaan sharafka iyo karaamada dadka Soomaaliyeed, si aad u ilaalisaan qarannimada iyo kala dambeynta iyo qaanuunka qaranka Soomaaliyeed, in aad go'aansataan inaad ku soo biirtaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan ciidanka danab inaad ku soo biirtaan. runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay, idinkaga mahad celinaynaa. waxaad la socotaan guud ahaan gobollada dalka ayaad ka timideen, waxaad la socotaan mushkiladaha iyo dhibaatooyinka ururada argagixisada xaq jirka oo ay ku hayaan ummadda Soomaaliyeed, oo ay baneesteen naftooda iyo maalkooda, sharafkooda iyo cisigooda. marka inaad taas aad ii sheegay ka hortagtaan, qaybna ka noqotaan la dagaalankooda looga xuraynayo dhammaan geyiga Soomaaliyeed iyo geeskan aan ku naallaba, aad iyo aad ayay u leedahay muhiimad gaar ah. waxaan isleeyahay runtii waa go'aankii ugu wanaagsanaa ee qof bini'aadmi ah qaadahay go'aanka aad qaadateen. halkan sida macallimiintu hore u sheegeen ma tihiin intagii ugu horeeyay kii labaad kii saddexaad kii sideedaad aad tihiin ee halkan ka baxaya ee ciidanka danab. runtii waxaad la socotaa saaxiibadii idinka horeeyay halkan ka baxay cadawga casharada ay ugu dhigayaan qaybo kala duwan oo dalka kamid ah. adinkana dabcan kuwaas ayaad ku biiri doontaan, waxaadna ka sii wadi doontaan meesha ay hadda geeyeen oo ay hadda taagan tahay iyo meesha ay geey doonaan intaad hadda halkan ku sugan tihiin ayaad ka sii wadi doontaan. dhammaanteen aan ka sii wadi doonaa idanka Ilaahay. waxaan rabaa marka inaan arrin yar oo dardaaran idin siiyo. waxaad maanta haysataan fursad aadan beri heli doonina. maanta waxaad haysataa jaanis aad wax ku barato, waxaad ku jirtaa dugsigii tababarka ayaad maanta ku jirtaa, waxaa ku hortaagan macallimiintii qaybahooda kala duwanaa oo xirfadihii ciidanka ay ku dhammaystiran yihiin. waxaad haysataa marka waqtiga maanta inuusan ku dhaafin. waxaad u baahan tahay maanta inay furnaadaan dhagahaagu, inay furnaato maskaxdaadu, inay furnaadaan indhahaagu. dhammaan waxa halkan lagugu baraayana ay noqdaan wax aan ku dhaafin ee aad ku qaadato qalbiga iyo maskaxda si berrita aad ugu falgasho. halkan waxay u baahan tahay sida macallimiintu u sheegeen dishibiliin. waxay u baahan tahay ishaaraadka iyo calaamadaha lagu siinaa inaad raacdo kanaadan leexan. waxay u baahan tahay runtii akhlaaq dheeriya iyo awood dheeriya iyo dulqaad dheeriya iyo adadkaysi dheeriya inaad muujiso si yoolkaaga aad u gaarto oo aad uga dhabayso ka mid noqoshada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan ciidanka danab. maanta inaad halkan fadhiso micnaheedu ma ahan danab inaad ka mid tahay, waxaad u fadhisaa inaad ka mid noqoto. waxaadna uga mid noqon kartaa dhammaan waxyaabaha looga baahan yahay dugsigan tababarka iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin macallimiinta wax ku baray inaad raacdo ayaad uga mid noqon kartaa. markaas hadda furihiyaad haysataa, guriga ma aadan gelin, banaanka iridkiisa taagantaa inaad furato marka hadday ku hortaalla adiga. haddii marka aad ku fayl garowdo oo aad furo weyso micnaheedu meeshaad yaad ku laabanaysaa. taasna waxay kugu suurtagelaysaa waxa halkan looga baahan yahay iyo nidaamka halkan looga baahan yahay iyo macallimiintu waxa ay kuu sheegayaan inaad qaadato oo ay maskaxdaada galaan. anaga Ilaahay aan ku baryaynaa inaad ugu fayl garoon waxaad halkan u timid, laakiin inaad ka dhabayso adiga ayay kuu taallaa. aad iyo aad u mahadsantihiin. waxaan runtii u mahad celinayaa hooyooyinkii iyo aabbayaashii idin dhalay oo runtii ayagana go'aansaday inay waqti idinku soo bixiyaan, idin barbaariyaan, waqtigan idin soo gaarsiiyaan, haddana maanta ay idin yiraahiin ayagoo idin duceynaya si aad u badbaadisaan nafaf badan iyo sharafka iyo karaamada muwaadiniinta oo hooyooyinkiin iyo aabbayaashiin ay ka mid yihiin. ku biira ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo idin soo diraan si aad dalkiina iyo dadkiina u xureysaan. aad iyo aad runtii ayagan ugu mahad celinayna. waxaan idin rajaynaa insha Allah tacaala iyadoo halkan wixii aad u timideen aad qaadateen, maskaxdiinuna ay ka duwan tahay meesha aad sida ay maanta tahay, meesha aad maanta joogtaan meel ka horeysan aad joogtaan in halkan isugu soo noqon doono dhammaanteen anagoo nabada insha Allah tacaala.
ciidanku wuxuu leeyahay maahma meesha doontaba tag waxa la yiraahdaa dhididkaaga maalinta nabadda wuxuu badbaadiyaa dhiigaaga maalinta dagaalka. ugu dambeyntiina daawadayaal Ilhaan Cumar ayaa markii saddexaad waxay ku guuleysatay doorashada kursiga degmada shanaad ee gobolka Minnesota ee Koongareeska Mareykanka kadib markii ay ka adkaatay musharax ka tirsan xisbiga Jamhuuriga. Ilhaan oo sanadkii 2018 noqotay qofkii ugu horeeyay ee Soomaali Amerikaan ah oo loo doorto Koongareeska Mareykanka ayaa difaacatay kursigeeda. hadal kooban oo ay u jeedisay taageerayaasheeda kadib guushii ay gaartay ayay ku sheegtay in guusheedu ay tahay mid Soomaalida u soo hoyatay isla markaasina ay ku faraxsan tahay in dib loo soo doortay. Ilhaan Cumar inkastoo xilkaasi ay ku guuleysatay haddana waxay u muuqataa in xisbiga talada dalka hayo oo xubin ka tahay looga adkaanayo aqalka Koongareeska doorashada xilliga dhexe ee shalayto ka dhacday Mareykanka. guud ahaan daawadayaal intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa muuqaalkan aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka. tani intaanu daawadayaal dib ugu kulmi doona muuqaalo kale waxaanu iminka idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.